Sanadkii 1989 magaalo ku taala dalka Jarmalka, nin dhalinyaro ah oo ka tirsanaa sirdoonka ugu cabsida badan adduunka ee KGB ayaa daaqadda ka eegayay boqolaal dad ah oo careysan oo soo weeraray xafiiskiisa. Ninkaasi wuxuu ahaa Vladimir Putin. Sidee sargaal caadi ah oo sirdoon uu ku noqday ninka maanta ruxaya adduunka oo dhan? Ku soo dhawaada sheeko taariikhi ah oo ka yaabisay caalamka. Putin kuma dhalan qasri boqortooyo, wuxuu ku dhashay guri dabaq ah oo ay dhowr qoys wada deganaayeen, oo jiirku ama dooligu aad ugu badnaa. Isagoo yar wuxuu bartay ciyaaraha loo yaqaano Sambo iyo Judo oo ah qaybo ka mid ah lagdinta, si uu isaga difaaco wiilasha ku dhibaateeya wadooyinka. Laakiin riyadiisii ugu weyneyd waxay ahayd hal qodob, kaasi oo ahaa inuu ku biiro sirdoonka caanka ah ee KGB. Riyadiisii weyneyd waa urmowday. Sirdoonka Ruushka waxay u dureen dalka Jarmalka si uu u soo aruuriyo siraha reer galbeedka. Laakiin sanadkii 1991 dowladdii weyneyd ee Midoogii Sofiyeeti waa ay duntay. Putin wuxuu dalkiisii ku soo laabtay isagoo aan haysan wax shaqo ah. Xitaa wuxuu ku khasbanaaday inuu dhowr bilood tagsiilo noqdo si uu u guto waajibaadka ka saaran reerkiisa. Laakiin sirdoonku marna ma hungoobo. Putin wuxuu si dhaqso ah u soo galay siyaasadda dalka. Madaxweynihii daciifka ahaa ee Ruushka, Boris Yeltsin, ayaa arkay nin dhalinyaro ah, aamusnaan badan, daacad ah. Sanadkii 1999 Boris wuxuu si lama filaan ah u magacaabay Putin inuu noqdo ra'iisul wasaare. Dhowr bilood kadibna wuxuu ku wareejiyey taladii dalka. Laga soo bilaabo maalinkaas wuxuu beddelay wejiga Ruushka iyo kan caalamka. Wuxuu meesha ka saaray dadkii taajiriinta ahaa ee dalka maamuli jiray, wuxuuna dhisay nidaam isaga u gaar ah. Nin tagsiilo ahaa, haddana ah madaxweynaha dalka ugu dhulka weyn adduunka. Maxay kula tahay adiga? Putin ma dhiirigeliye baa mise waa keligii taliye halis ah? Fikirkaaga nagula wadaag commentiga. Ha moogaanin inaad subscribe saarato.